Bismillahirrahmanirrahiim. Awla assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muuqaal cusub iyo Juqla Media. Maanta waxaan igu soo gudbi doonaa dhacdo la yaab leh ee ka dhacday horyaalka Faransiiska. Horyaalka Faransa oo baryahanba iska ahaa horyaal beerley waxayba noo dareen in diinta Islaamka ay faquuqaan, ay wax ka sheegaan, ayna dadka Islaamka haysto ay ku qasbaan waxyaalo ay diinta ay mamnuuc ka tahay. Maxaad kala socotaa dagaalka ka bilowday fanaanad kooxeed kadibna isku bedelay dagaal u dhaxeeya muslimka iyo bini'aadamka caadiga ah iyo qaniisiinta ama qowmuluudka waxaad u taqaanid. Haddii aad ku cusub tahay janaalkan, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, like-na dhahdo si uu u gaaro asxaab badan. Waxaan kaloo kugu dhiirigelinayaa inaad ku xoogsatid diintaada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naadiga kubadda cagta PSG ee horyaalka Faransiiska ayaa kulankii ugu dambeeyay ay ciyaartay horyaalka Faransa ayaa waxay fanaanadeeda ku qoreen midabka calanka qowmuluudka, taas oo keentay in laacibka muslimka ah ee qaranka Senegal iyo Idris Gueye uu diiday inuu xirto fanaanadaas, isaga oo sharfaya diintiisa Islaamka, isla markaana gabi ahaanba seegay ciyaarista kulankaas. Idris Gueye haddii la xirnaa nambarkaas ma ciyaara ayuu dhahay, waxyaabo oo cudurdaar ayuu sheegtay, sidaas ayuuna kulanku seegay. Laakiin maxaa dhacay ciyaarta kadib? Balse markii ay ciyaarta soo gabagabowday ayaa qolyo Faransiis ah ee u dooda qolyahaas ee qaniisiinta ah ama qowmuluudka waxaad u taqaanid, waxa ay dacwo u soo gudbiyeen xiriirka anshaxa ee horyaalka Faransiiska, taas oo keentay in baaris lagu sameeyo laacibka Idris Gueye, iyaga oo sheegaya haddii ay laacibku ciyaartaas ugu seegay oo ugu baaqday sababo la xiriira nacaybka oo qowmuluudka u qabo darteed in ay ganaaxi doonaan. Arrinka waxaaba dhaheen haddiiba faano in oo ugu maqnaa kulankaas nacayb oo u qabo qowmuluudka ama qaniisiinta waxaa u taqaanid, nambarkaas fanaanada inuu xirto darteed haddoo u maqan yahay waa la ganaaxi doonaa ayay dhaheen. Kadib maxaa dhacay? Arrinkaas markii uu soo baxay ayaa waxaa kacdoon looga soo horjeeda qowmuluudnimada waxa uu ka bilowday barta Twitter-ka, iyaga oo dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo kuwa aan muslimka ahayn ee neceb qowmuluudnimada ay ka soo wada horjeesteen dulmiga iyo xadgudubka xiriirka kubadda cagta Faransiiska ay u soo sameeyeen, ay ku soo horjeesteen ciyaaryahankaas muslimka ah ee Idris Gueye. Barta Twitter-ka ayaaba kacdoon ka bilowday oo loogu soo horjeedo xiriirka kubadda cagta Faransiiska iyo intii la safan oo dacwada fureysa oo jecel in Idris Gueye dacwad lagu soo rogo, oo dacwad lacageed ama ganax lacageed la saaro ama xabsi la dhigo. Inta ka soo horjeedo kacdoona ugu bilowday baraha bulshada qaybta Twitter-ka, taas oo la wada fahansan yahay in muslimnimada ay wax weyn tahay. Saasay tahay haddana Idris Gueye uu ku adkaystay, xitaa waxaa garab istaagay saaxiibadiisa ee ka dheela horyaalka Premier League Watford iyo Everton, labada ciyaartooy Ismail Sarr iyo mid kale oo Everton ka tirsan Everton Crystal Palace. Labadaas ciyaartooy naftirkooda horyaalka Premier League ku dhagan. Patrick Vieira ka hadlay Crystal Palace ayaa wuxuu sheegay inuu ka raali geliyay ciyaaryahankaas wixii uu sheegay Ismail Sarr, si oo macquul ah uga hadlay xidigaas in loo gudbo loona ammaan geliyo diintiisa Islaamka, ilaa waa diin wax gooni ah oo qofka uu ku dhaqmo oona ilaahaygiisa oo ku adeeco. Haddii inka gaali ay macnaheedu maahan in diinta Islaamka dadka haysto ay xadgudub ku sameeyaan ama ay ku xoojiyaan in ay muhiimad ay siiyaan dhaqankooda, maadaama anagaba dhaqankeena aynu soo galaynin. Waxaa fiican 100% in anaga dhaqankeena ay noo ammaan geliyaan. Marka Ismail Sarr iyo xiddi kale Crystal Palace asina sidaas lagu haystaa
waxaa kaloo kasoo hadlay oo madaxweynaha dalka Senegal oo Idris Gaya oo ka dhashay oo ka wato oona u dheelo xulkaas. madaxweynaha ayaa yiri Idris Gaya waa ciyaaryahan, waa laacib weyn, mana ahan in lagu qasbo wax diintiisa aysan ogoleen inuu sameeyo, loona amaan geliyo diintiisa waxa ay diidan tahay inuu baalmaro in loo ogolaado ayaa fiican. sidoo kale majalada waaweyn ayaa soo sheegay in ninkaas diintiisa islaamka uu ku adag yahay, qalad tahay in waxyaalahaas oo kale loola hor imaado. waxaa kalooba ka daran madaxweynaha PSG Nasser Al-Khalifi oo sheegtay inuu nin muslim yahay oo kasoo jeeda waddan Carabeed, ayaaba ogolaaday in fanaanadaas la buufiyo oo ay ku dheelaan naadiga. ma aqaan runaantii sidee wax ay ka tahay, laakiin Paris markaa fiirisid waa qolyo muslima iska leh, laakiin qolyaha fanaanada daawacmaya mushkilada ma aqaano, laakiin waa garab istaaganahay walaalkeen Idris Gaya Gowaya. qof walba muslim ahna waxaan jeclahay inuu u duceeyo kana duceysto falalkaas oo kale inuu ku kaco. aad iyo aad ka mahad celinaa daawashada muuqaalkan. haddii aad nala soo gaartay finaalka, fadlan subscribe saar, like dhayso oo gaar asxaab badan. Peace.